بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galno munaasabadan ballaaran oo maaragtay looga doodayo maxaa la yiraahdaa environmentiga. maanta oo dhan waxaa laga sheekeynaya istaraatiijiyadda iyo environment dhibaatada ka intaa environment maxaa la yiraahdaa waa in maaragtay la ilaaliyaa waa environmentiga maxaa la yiraahdaa la wanaajiyaa waxyaabahaas oo dhan laga hadlayay. waxay ahayd 2023 fatahaadii maaragtay ka dhacday wadanka oo saameysay dhammaan maxaa la yiraahdaa inta badan gobolada koonfurta wadanka Soomaaliya. runtii fatahaadaas ana waxaan ahayn dadkii ka gurmanayay oo maaragtay gurmadka bixinayay. ase yeeshee marka waxaa istusinay inay muhiim ay tahay in qiimeyn lagu sameeyo ama assessment in lagu sameeyo. dabcan waxaan isla garanay inaan sameyno waxa la yiraahdo rapid post disaster needs assessment oo maaragtay ay muhiim ay tahay in meelaha fatahaaduhu ay ka dhaceen la ogaado maxaa la yiraahdaa consequence-ga fatahaadaas ay geysatay. halkan sidan kaga muuqata maapkan wuxuu sheegayaa fatahaada ka hor waxa weeye sawirkii la qaaday dhulka sidoo ahaa iyo soo dry u ahaa iyo sidoo kale fatahaada markay dhamaatay kadib dhulka sidoo ahaa. sidoo kale fatahaada marka lagu jiray ayadana maxaa la yiraahdaa siday kala ahayd iyo maaragtay say deegaanada ugu kala badneed. sawirkan waxaan ka qaadnay webiga Jubba deegaanada uu maro ayaan maaragtay ka qaadnay. objective-ka marka assessment-iga markaan sameeynay aan maaragtay ugu dan lahayn wuxuu ahaa inaan maxaa la yiraahdaa assess gareyno physical assets-ka maaragtay saameynta ay ku yeelatay iyo service delivery-ga saameynta ay ku yeelatay fatahaada dhacday. sidoo kale assessment-iga objective-ka kale oo ka lahayn waxay ahayd in maaragtay infrastructure-radii burburay sidii maaragtay ay ugu noqon lahayd bilowga reconstruction-ka loo sameyn doono meeshii ay ka bilaaban lahayd inay noqoto. sidoo kale objective-ka saddexaad oo aan ugu dan lahayn waxay ahayd maxaa la yiraahdaa inaan qaadano istaraatiijiyad la yiraahdo building back better ama xoojinta resilience-ga sidii loo adkeyn lahaa maxaa la yiraahdaa u adkeysiga oo in case haddii maaragtay musiibooyin noocan oo kale ay soo noqdaan sidii maaragtay social infrastructure-ka ay ugu adkeysan lahaayeen. runtii maxaa la yiraahdaa assessment-iga aan sameynayno aan hore usoo qabanay scope-ka uu maaragtay ku fadhiyay waxay ahaayeen 16 degmo oo ka tirsan degmooyinka wadanka out of 32gii oo maaragtay fatahaadu ay ka dhacday. sidoo kale sector-iska aan assessment-iga ka sameynay waxay ahaayeen 9 sector oo guud ahaan maaragtay nolosha maaragtay muhiim u ahaa. waxaa jira marka steps-ka aan maaragtay qaadnay. marka hore waxaan qiimeynay ama xaaladda aan ka fiirinay context-ka markaas deegaanada ay ku sugan yihiin annagoo maaragtay la barbar dhigayna xaaladihii hore oo maaragtay ummadda ay la daala dhacayeen. sidoo kale waxaan specifically assessment-iga markaan sameynayna focus gareynaynay waxa la yiraahdo loss and damage. maxaa fatahaadii Elnino ay dhacday ay ku waayeen deegaanada sambalka aan u qaadanay ee 16 degmo oo wadanka oo dhana maxaa yacni maxaa la yiraahdaa damage uu soo gaaray. sidoo kale maxaa riski ama vulnerable u ah in la waayo ama inay meesha maaragtay ka baxaan. sidoo kale waxaa kaloo aan iyadana focus gareynaynay impact-iga human impact-iga ay ku yeelanayso ama macro maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa macroeconomics-ka ayagana waxaa la yiraahdaa waxyaabahan fiirinaynay oo GPD-ga guud ahaan deegaanadaas waxyaabahan ka fiirinaynay ka mid ahayd. tan afraad oo aan maaragtay aan qaadno waxay ahayd inaan qeexno priorities-ka waxyaabaha dadka priority u ah ay u baahan yihiin in si degdeg ah maaragtay ay maaragtay uga soo kabtaan. tan shanaadna waxa weeye waa in gogol dhig uu noqdo assessment-igaas istaraatiijiyooyin iyo recovery maxaa la yiraahdaa in maaragtay dadku ay ka yeeshaan oo qorshooyin laga soo dejiyo si dhibaatadan maaragtay deegaanada Soomaaliyeed ku dhufatay ay u noqoto maxaa la yiraahdaa mar dambe aysan maaragtay si dhibaato intaas oo kale ayna soo gaarin. sector-rada runtii assessment-igan waxaa qayb weyn ka qaatay anagoo sodma ah oo matalayna dowladda Soomaaliya iyo maxaa la yiraahdaa dhammaan wasaaradaha oo maaragtay anaga inline aan shaqo ahaan lahayn. sidoo kale waxaa kaloo gacan naga siiyay World Bank-ga iyo maxaa la yiraahdaa
European Unionka iyo UN-ka oo isla socda. Sektarada sida arkaysaan maxaa la yiraahdaa social sector-ka intuu ka kooban yahay guud ahaan way ku wada jireen, productive sector-ka way ku wada jireen, iyo dabcan sector kastana waxaa inlaan lahaa sector expertiye ka socday maxaa la yiraahdaa UN-ka iyo maxaa la yiraahdaa World Bank-ga. Processka aan marnay ama milestone-ada ugu waaweyn aan eegsanayna waxay ahayd assessment-gan markii ugu horeysay waxaan loo jigareynay 22 February. sidoo kale data collection-ka waxaan bilownay February 23 ilaa 20 March ayadoo maaragtay restrictiono badan ay iska jireen oo maxaa la yiraahdaa Ramadaankii oo nagu jiray iyo maxaa la yiraahdaa deegaanada qaar oo aan la tagi karin, kuwa al-shabaab ay haystaan, kuwa airport-dooda iska xun yihiin. Data analysis inaan sameyno, inaan maxaa la yiraahdaa update gareeno, maxaa la yiraahdaa aan revision ku sameyno datooyinkii soo baxay, technically teamamkii caawinayna aan maaragtay kala fadhiisano, maamul goboleedyada aan tala ka siinay oo maaragtay ayagana ay taladooda ay maaragtay ku darsadeen. sidoo kale maxaa la yiraahdaa inaan ayadana launching aan u sameynay oo aan ku soo bandhignay 12 June Dekale ayaan ku soo bandhignay. Then marka validationkii ugu dambeeyayna waxaan sameynay 1 July. Fatahaadii El Niño ee dhacday damage-ka marka inta hantida ku burburtay marka 9 sector la soo qaado waxay dhameed maxaa la yiraahdaa in ka badan 126.6 milyan oo dollar ayaa dadka Soomaaliyeed uga burburtay, waana wax ka imaaday maxaa la yiraahdaa climate change-ga dhacay. anagoo og Soomaaliya social sector-keeda sida uu maaragtay oo fragile u yahay iyo maaragtay dhibaatada gaartay. haddana waxaa la filayaa in maaragtay bilaha October, November iyo December sida ay sheegayso saadaasha in abaar la yiraahdo La Niño haddaan Ilaahay naga qaban ay ku dhufan doonto inta badan deegaanadii fatahaaduhu ay maaragtay ka dhaceen. abaartaas oo maaragtay ayadoon weli aan laga soo kabsanin dadkaana aysan helin recovery-ga loogu talagalay ayaa haddana abaartii maaragtay ay soo wajahaysaa. waxaa halkan ku yaala sidoo kale loska waxyaabaha lagu waayey oo maxaa la yiraahdaa qiyaasta hantida meeshaas ku burburtay waxay ahayd in ka badan maxaa la yiraahdaa 49.5 milyan oo dollar oo waxyaabihii maaragtay lagu waayey. sidoo kale waxyaabaha needska oo loo baahan yahay ama yacni anagoo ku base gareynayna qaacidadeena ahayd building back better oo si resilience sax ah ay u helaan maxaa la yiraahdaa sector-radii burburay. waxaan estimation u sameynay maxaa la yiraahdaa costiga loo baahan yahay waxayna noqotay 230.6 milyan oo dollar ayaan maaragtay ku qiyaasnay si sector-radaas oo dhan ay recovery u sameeyaan. runtii datadan markaan aruurinaynay waxaan u aruurinay qaab la yiraahdo secondary data collection. halkan waxaan si gaar ah uga soo saarnay saameynta xagga caafimaadka ama maxaa la yiraahdaa health damage and loss-ka. sidoo kale halkan waxaa ku yaala sector kasta iyo lacagta maaragtay damage-ka ama hantida ka baaba'day fatahaadii ay baabi'isay inta ay la eg tahay. sidoo kale waxaa ku yaala loss-ka sector kasta lacagta intay la eg tahay. sidoo kale waxaan kaloo maaragtay aan ayagana qiimeynay sector kasta lacagta uu baahan yahay in recovery ay kusoo sameeyaan. halkan waa adeega caafimaadka ee ku baaba'ay maxaa la yiraahdaa fatahaadii El Niño adduun dhan maxaa la yiraahdaa waxaa ku burburay ama damage uu soo gaaray 7,545,000 oo dollar. loss waxaa ku dhacay 9,825,000 oo dollar. tirada loo baahan yahay ama dakhliga loo baahan yahay si recovery ay u helaanna waa over 19 million 19,551,750 dollar. gobollada marka sida ay maaragtay gobollada marka siday ugu kala badan yihiin dabcan waxaan ka sameynay waa maamul goboleedyada Jubbaland, South West iyo Galmudug iyo Hirshabelle. impactiga marka ay geysatay marka la fiiriyo miisaaniyadda dawladda ee 2024 boqolkiiba 17 ka mid ah ayay la eg tahay saameynta maxaa la yiraahdaa ama maaragtay loss-ka iyo damage-ka dhacay
marka la fiiriyo dabcan waxayna ka turjumaysaa inaysan dowladdu aysan awood u lahayn in maxaa la yidhahdaa si degdeg ah recovery ay arrintaas ugu sameyso fatahaadaas marka waxay xoojisay buffertiga Soomaaliya buffertiga meesha uu joogay way waxaa la dhihi karaa waxbay ku sii dartay oo buffertiga way sii badisay sidoo kale waxay xoojisay maxaa la yidhahdaa in oo maaragtay wax soo saarkii waddanka uu maaragtay aad iyo aad u yaraado haddaa halkan fiirisaan meesha ugu muhiimsaneed waa waxa ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen over 2.1 million ayaa maxaa la yidhahdaa buffertiga Soomaaliya floodingka ka hor maxaa la yidhahdaa lagu qiyaasayay laakiin hadda actually anaga assessmentiga aan sameynaynay يعني specific kuma ahayn buffertiga laakiin wuxuu guunig u ahaa assessmentiga kala soo socda oo buffertiga lagu ogaan doono oo maaragtay wasaaradaha shaqada kule ay maaragtay sheegi doonaan laakiin waxa aad u xoogan oo maaragtay shakina uusan ku jirin in maaragtay buffertiga Soomaaliya oo intaas ka sii batay diyuutida fatahaadii dhacday sidoo kale dhinaca cunno yarida 304,980 qofood ayaa waxay wajahayaan maaragtay cunno yari ayadoo aan ogeyn 1.5 million caruurta Soomaaliyeed inay maaragtay wajahayeen waxa la yiraahdaa acute malnutrition sidoo kale over 2 million dadka Soomaaliyeed ayaa maaragtay waxa fatahaadan ay sababtay inay ku dhacaan cudurrada maxaa la yiraahdaa waterborne disease-ka iyo cudurrada ka dhasha waxyaabaha contamination-ka ama masqulaha waxyaabahaas oo kale waxbarashada 600 macallin ayaa shaqadoodii waayay in ka badan 738,000 oo ardayna waxay dhumiyeen maxaa la yiraahdaa iskuuladii iyo waxbarashadii ayay dhumiyeen sidoo kale fatahaadu waxay saameyn ku yeelatay maxaa la yiraahdaa arrimaha genderka iyo maxaa la yiraahdaa ayadoo sababtay protection riskiga visionka ugu weyn oo maaragtay la hiigsanayo wuxuu ahaa in maxaa la yiraahdaa resilience xoogan la helo oo deegaanada ay maaragtay fatahaadu ay saameysay si adeegyada maaragtay bulshada ay u noqdaan adeegyo tayo leh oo maxaa la yiraahdaa mujtamaca ay u adeegsadaan pillars-ka aan hiigsanayna waxay ahaayeen community-ga resilience-giisa in la xoojiyo si maaragtay looga hortago dhibaatooyinka dhaca ama disasterska dambe ee soo socda bulshada si ay u noqoto kuwa u adkaysta sidoo kale in maaragtay la xoojiyo community-ga dhaqaalahooda iyo wax soo saarkooda sidoo kale in community-ga ay helaan maxaa la yiraahdaa waxyaabaha essential service-ka aad iyo aad u mahadsantiin